horumarka iyo dhibaatooyinka challenge-ka wada socda iskuulku wuu batay oo barigaan joogay cidoo ahaa 40 kala soo quraha arday badan baa soo gashay dadkii baa soo degay magaalada waa ciriiri magaalo ganacsi waa ku soo dhawaatay wadadana banaan bay ahayd dadkii baa badashka batay ganacsi waa hore maray dhulkii waa la dhistay waa ciriiri ardaydu waa ku batay ee markaa wuxuu baahan yahay in inta la bartamo dhaqaale badan lagu dhiso lagu hagaajiyo banaanada loo kordhiyo markaa wax badan way kordhay waqti dheer horumarku dhibaatay isku leeyahay madaxweyne waxa jecelahay tayada waxbarashada dawladda mar weyn ka hadlaysay sidaad wax uga qabanaysaa waa la dhaliila waynu koreynaa dawlad ahaan iyo dad ahaanba tayadeenu maalmo bay isu kordhisaa waxa marka dibadaha ardayda Soomaaliyeed ka baxda ardayda geeska Afrika inay tartanka xag hor ka galaan adduunkana waa higsanayaan imikana waa si wanaagsan oo isku tagayna dhamaanteed miidiyaheena koraya ardaydeena koraysa ganacsigeena koraysa dawladdeena koraysa wax walba wada horumar socdaan oo korayna marka tayadeenu halkan doonayna ma gaarsiisana oo waanu tartamaynaa aad iyo aad way koraysaa imka aad iyo aad wasaaradana waa ku amaanaya arrinta imtixaanka goob waxbarasho weey goobta waxbarasho imika indhahaaga waxaad ku arkaysay subaxdii haddaad timaadana gabadha maamulaya dadkoo dhan ila dadaalayaan xashiish fara badan oo shaqadii dawladda hoose ahaan lahayd maxaa taa kor leeyahay war dhaliilo badan bay leedahay oo marka qaarkood maamulkeena korayo taagdaran mar dhaqaalaheena taagdaran mar garaadkeena guud dadka iskuulka eega oo dhaqaaleeyo oo iskuulka dhowr ayaa daran marka dhibaatooyin badan way jiraan laakiin waxa ka badan inta horumar wanaagsan laakiin halkan imika waxyaalo badan la saxad inaanu saxnaan u baahnaa way taala aroorubana waa la saxayaa wax qofkii nool iyo dawladda waxa noo samaysanaa inaan arooruba wax saaro ila adduunyada marna ma dhamaato tiro toonaad ma noqotee marka dhalin waa jira waan saxana hadii la madaxweyne magacaygu weyn waa Patrick Osar waxa ka socda telefishinka Ariel hatta muddadiyaad xilka haysay waxaad moodaa inuu si u badanayo xarigii siyaasiga ahaa arintaas aad u aragtay xarig siyaasi ma aha xarig dambiilaha badanaya dambiilahana waa la xidhaya ninkii dambi galaha oran waa siyaasiga dambi gali kara dhakhtarka gali kara adigoo wariyaha gali kara baamisriga gali kara dambiila waa la qabanaya si dalka hore u socdo madaxweyne magacaygu Luqmaan Maxamed oo ka socda telefishinka bulsho madaxweyne waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo xaaladda bariga gobolka Sanaag gobolkii Sanaag maamulkii Puntland madaxweyne si walba waa u galeen muddooyinka ugu dambeeyay waa ku sugnaayeen adna wasiir tagay uu ka soo noqday bal madaxweyne maxaad ka damacsantahay gobolkii baran Sanaag aad iyo aad u fiicantay wariyaasha waxa la yiri maqaarkaash meel waxbay ka horsata gobolkii Sanaag balaa saaka ma jirto xalay Sanaag waxa ku dooday laba nin oo ilmaadeera oo midna yahay wasiir Puntland midna wasiir Soomaaliland dadkuna meel kasta doodo way ka joogtaa xaq bay u leeyihiin inay iyagu isqanciyaan inay Soomaaliland ku qancaan inay iyagu qaranimada qaadaan reer baran iyo reer dhahar iyo reer ascaarood adiga Soomaaliland kaaga jecel badan iyagaana dhisaaya iyagaana si socod dalkooda waana ku ixtiraamayna waana ku garab galeynaa Puntland culmanihin Soomaaliya iyagana jaar ka nahay wanaag baynu ka doonayna ku wada noolaano xuduudkii gaalada Afrika oo dhan qortay in baa inoo dhaxeeya xuduudkii inagu ma inaan sameyn waa isticmaalka Afrika oo dhan ku ay maarad ku dhisan tahay waxaan leenahay walaalnimo iyo wada shaqayn aynu ku bedelo colaad iyo reer hebel baynu marka dhibaato ka jirta Puntland iyo Soomaaliland waa dhibaatooyinka caadiga ka jira waxa ka daran oo ka jirta ta gudaheeda ka xun sanad iyo barbo dagaal soo ka socda waxa la isku dilaay garan maayo dagaal qabiiladeed baa ka socda oo aan dhamaanin oo dad ku dhamaaday oo tacliinta ku hagaastay oo horumar ku hagaastay oo ardayda wax ku baranay oo ay wadaan Soomaaliland deegaankeeda beelaha oo waliba daba dheeraaday marka kaasa xal u baahan dhibaatada taa weyn waa tu ay dadka Soomaaliland ee baran iyo laas qoray iyo laas caano jooga ay iyagu wadaan oo baahan garab galo aad garanaysana Soomaali xad waliba reer ku dhaxdhacay Afrika oo dhan Congo iyo waad arkaysaa wax ka taagan Uganda iyo Congo waad arkaysaa waxa ka taagan gobol walba si la soo haysto xadkii isticmaalku reer ku dhaxdhacay dadkii halka joogay waa dabcan raayay kala duwan bay keenayaan waana Afrika oo dhan dhibaato haysta waliba Soomaaliland dariska bariga jooga aad iyo aad bay Soomaaliland u dhigay laakiin waxa wanaagsan in saxarta gudaheena ee wax lagu dhimayaa aanan garanayn ee dhammaan la ee dadkii ku baaba'ay ee dawladii hawl weyn ka gaaray dhaqaale iyo socodba labada taay weydiiyo su'aal jira diiday هاي كراسي سؤال كواد وحوي واحد شيكتي إلا جوجيي أما دولة جوجيتي كباع مشتريته وخبرشده بل فاهين ده هذا برشده كسي ما يدرسين قار كلها مش كبحية السؤال اللي بعده وحوي ما أنت واحد حصيصة صدق كنت تستنى درسيات برسنتي
أنا واحد دوني إنكم حسوسيو وحان دمين لبعض سنة كور وقت قلت له ذلك هي محمد حج إبراهيم عقال واحد فكرة سياسية الأورجينال معارض وقت يا دور باهين الله هذا الشيء واحد شيء إن مدحوينها أضاف تمام إياه أنت دبات تشرب إنكم تلين أيوه هذا يقول محكمة دي غير كاجا هي تلي عيدا كقرن غير كاجا هي حرلالين غير كاجا هي بلبان هذا كسي كفدية دادي سيت دواتنا دوت هاي بالمحاد كحصتها مالمها مدحوينها ركاب بيدر سيمات دولدا ذيك waxaan ka xustaa waa runta daadi maxamed xajraaci gaalla wasiirkiisa dakhliga ah bariga malaha nin waa lagu sheekay aad u baad joogin waa runta maxamed xajraaci inta waa ku canantay waxaan ugu canantay waxa qalad u maalinta joogay baan ka qabanay khaladkaas waxa markaa ay salaadiintii faraha badnay Soomaaliya ku shireen guriga qorsaan ninka barre gurigiisa Suudaan barre ku rabay oo dad aqal xumay inta u tiriyeen la yiri ciidanka wareer taageera soo raqaaji taangiga ninkii tagay waxa qolada wata ku war xagee ku socotaa meel walaal maxamedna intaan ugu tagay gurigiisa ayaan inta ka badan ku diidana ka waayo waxaan ahaa ninkii ugu dhawaayay isaga qaban lahaa maanta adigu micid baa wareerada ka qabanaysa hadii sheegaysa maanta micida weerarayo oo salaadiina ama baacibtiro guri ku jira oo lagu qaldoon weeraraya jira maxamed xajraaci qaban lahaa ee wasiir dakhligiisa ah ee saaxiibka lahaa ee tala ugu dhawaabaan ahaa ee intuu qabtanay ka daa waanu iga aqbalay waanu ka daay su'aal anigu kuna mid gasho talka ku maraysa عثمان محمود وبرمر والله صادين السمالة كان شربوا كوباغي وليه هي وحق بسنية ليلها دقبرية يقلبك كحكومة هاي الشركة سيدي السدوية يدلموا وناك بان ورقنا بيلها السومال لانو شركة بيل وال أو سومال سنة وناك بيكترسا وحنا سومال كمترس لا بيلوت صدح بيلوت بيرين شرية حرب ويه سلطان كنا هو سلطان خير عربتي خير كي سعيد دون الله شريك كرا مبدأ دونا بيقاضي كرا مدحوله معارض كنا قوا كرا wax xurb iyo maxtala ma galay laakiin buur madow iyo inta gartay wax laga rabaa nabadda gobolka sare gaar ahaan ceelafo xam badan baa jirta suldaan iyo boqormaha kii nabadgelyo darrada lagu xanto kii la yiraahdo isaga fidmada wada maaha boqor dadku boqor madow buurta u yahay suldaanka u yahay laba sano iyo bar dagaal bay ku jiraan sokay isna telefoon buu ku wada waxa laga rabaa inuu dalkiisa nabad ka dhaliyo gacan ku dhiilaha soo qabto nabadda horseed ka noqdo